Okay, غيرت soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan tuso couple things. Waxaan rabaa inaan tuso. Marka hore waxaan rabaa inaan tuso meelaha formulooyinka ku jiraan mararka qaarkood markay waxaan oo kale ka soo baxaan dadka data entry gelinaya inay confusion ku ridaan. Ama qofkii raba inuu analyze gareeyo oo aan Excel ka si fiican waxaan aan weligiis arag inuu dhaho maxay tahay waxan. Marka waxaan oo kale sida loo tirtiro inaan tuso. waxaan kaloo rabaa inaan tuso gross margin-ka revenue iyo markii la tixgeliyo cost of goods-ka gross margin-ka iyo in lagu calculate gareyn karo Excel-ka iyo xogaa yaro analyze. Okay, tan aan ka bilowno. Tan halkaana waxaan leenahay if error function la dhaho baa jira oo maaragtay noo suurta gelinaya inaan halkaas clean ka dhigno. Marka waxaan leenahay if error haddii B1 divided by B1 oo qalad uu soo tuuraayo waxaa gelisaa waxba marka waxaas hadduu soo qorqoraayo meeshaas waxay iga dhigtaa sida taro kuwaan oo kale igaga dhig page cad. Okay, halkaa marka waa igaga dhigi mujida halkaas waa page cad. Hadda haddaan geliyo 3000 halkaa haddaan ka saaro halkaa wax soo baxaya oo dadku ku wareerayaan ma jirto. Okay, hadda revenue aan fiirino. Waxaan sameeyey revenue ah 56,200 revenue ahaan sameeyey. Alaabtani waxay i costi garaysay 31,100 ay costi garaysay. Marka gross margin-kayga waa aragtaan waa 25,144.7. Alaabtan laakiin waxay costi garoonaysaa 55.3%. marka waxani waa gross margin ma aha net profit. waxyaalo expensive badan oo kale ay dhiman kii shaqaalaha meesha ijaarkeedii waxyaalo badan ay dhiman. marka waa cost of goods-ka waxaan u arkaa inay tahay wax badan lacagtan waa badan tahay. waa inaa halkaana waxaan rabaa inaan ka dhigto gross margin-kayga waa inuu 30,000 u ahaado uu noqdaan rabaa kuwaana ay wax iga dhimaan goolkaasaan rabaa inaan sad garaysto. halkaana tegaysaa dhaad hadda koraan aan sharaxay goolsig wax lagu samaysto tanna waa ku sameynaynaa. waxaan leeyahay meeshaas 25,100 ka ah waxaan rabaa inay ii noqoto maxay noqonaysaa 30,000. waxaan bedelayaa oo rabaa in wax laga bedelo tan in wax la dhimo. Okay, marka goolsig wuxuu noo soo helay goolkeeni saanu nooga dhigay. wuxuu dhahay si aad ku heshid 53.4% of gross margin asaa ku heshid alaabtan waa inaysan ka badan 46.6% amaba lacag ahaan 26,200 inaysan ka badan waay. marka waxaa aragteen labo shay aragteen. midda koobaad in gross margin-ka lagu samayn karo Excel. midda labaadna in if error lagu tirtiran karo waxyaalaha qaladka ah oo dadka data entry sameynaya wareerinaya. markaan waqti helo insha Allah waxaa idin sameynaya cashar kale oo xiiso leh. sidaas iyo nabad gelyo.